Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal waa idin salaamayaa. Soo dhawaada dhammaantiin. Walaalayaal halkan waxaan maanta idinku hayaa dhowr shay oo u daran yani rheumatismka u daran ama rheumatismka yani waxyaalaha xanuunka kor u qaada oo cuntooyinkeena aan guryaha ku karsano ah oo inama marnaba kuu fiicneen xanuunka kugu siyaadinaya. Marka walaalayaal dhowrkaas shay waxay tahay haddaadan iska taxadirinin ay aad iyo aad kugu darnaanayso caafimaadkaagana maaragtay aanan meeshii aad isdhahaysay waxba aad ka buskoonaysaa haddaad jirkaaga yani kusii wadid ay aad ugu daran tahay. Waxaa ka mid ah cuntooyinka maaragtay la shiilo sida maaragtay baradhadoo kale, hilibkii la shiilay, adigu cunto oo la shiilay. Cuntada yani dadka rheumatismka qaba waxaa u fiican waxa weeye cunto la uumateeyey. Marka cuntooyinka la shiilay iska ilaali haddaad rheumatism qabtid. Cuntooyinka cusbada leh, cunto cusbo leh iyadana iska ilaali oo cusbadeedu maaragtay aad u badan tahay xanuunka ayaa kugu badanaya. Lafaha ayaa maaragtay damage kaa noqonaya meel walbaba. Marka taasna iska ilaali insha Allah. Ta kale waxay tahay sonkorta maaragtay sonkorta iyadan iska ilaali. Waxaa fiican meeshaad sonkor cad ka cuni lahayd sonkorta buniga ah brown sugarka, sonkorta brownka ah inaad cuntid oo maaragtay sonkorta brownka ah buniga inaad cuntid baa tan cad ku bedelo. Ta kale waxay tahay burka cad iyaduna burka cad iska ilaali. Xataa burka qamandiga ah isna kuma fiicna marka balse yani burka cad wuxuu isna aad ugu daran yahay waxa weeye faxiisa ku jirta yani waxyaalaha faxiisada ku jirto aad iyo aad bay iyaduna ugu daran tahay rheumatismka. Ta kale halkan ku xusaya iyaduna waxay tahay walaalayaal saliid cadayda galleyda laga sameeyay iyaduna aad bay ugu daran tahay. Ka fogow intaa ka fogaan kartid insha Allah. Haddaad bedelkeeda waxaad ku bedeltaa alif oo iyo olive iyo waxaad ku bedeltaa coconut oil saliid qumbe iyo maaragtay saliid macsaro oo maaragtay aad korka kaga darsanaysid olivada korkaad kaga darsanaysaa cuntada. Laakiin saliidda la yiraahdo coconut oil ku iyada cuntada waa lagu karsadaa. Marka saa ula socda saliidahaas isticmaal. Saliidaha waxaad iska ilaalisaa la yiraahdo saliidda la yiraahdo saliidda galleyda laga sameeyay corn oil-ka iska ilaali kuma fiicna. Marka walaalayaal intaas aan idin soo sheegay haddaad cuntid diet-kaaga waa inaad wax ka bedeshid. Cuntada maaragtay fried foods-ka cuntada la shiilo ku bedelo inaad uumateysatid. Cuntada cusbada ah waxaad samayn kartaa cuntada cusbada ha ku badsanin. Waxaad samayn kartaa cunto maaragtay cusbadeedu ay aad u control garaysan tahay. Waxaadna isku daydaa inaad ku darsatid cusbada la yiraahdo sea salt oo cusbada kuskuska ah. Midda shiidan maaha iska ilaali kana carar cusbada shiidan. Cusbada kuskuska cuntada ku darso iyadana ku bedelo. Sonkorta sidoo kale sonkorta cad iska ilaali. Sonkorta brown sugarka brownka buniga ah taas ku bedel iyadana insha Allah biidnillah. Wax badan baad iska bedelaysaa jirkaaga maanta caafimaad aad dareemi doontaa. Burka dadka burka cad cuna ama qamandiga xataa kuma fiicna. Laakiin haddii aad bal iska tijaabi adigu isku day burka cad horta kuma fiicna. Laakiin qamandiga hadduu kuu shaqeyn waayo oo aad maaragtay waxyaalaha qamandiga ku jira aad ka maarmi weydo iska yaryare yani wax yar isku qas yani wax yar ku xad. Cuntada waxaadna ogaataa cuntada haddaad midda kale waxay tahay haddaad rheumatism qabtid cuntada aad yani ka soo qaad rooti baad mar walba rootigii baad cunaysaa maalin walbaad ku quraacaysaa. No iska ilaali cuntada aad mar walbaba repeat-ka ku sameynaysid soo celcelinaysid inaad wiigii dhowr mar ku cuntid iska ilaali taas iyadana xanuun bay keentaa. Waxaa kale oo maaragtay jirkeena iyadana dadka rheumatismka qabo u daran waxay tahay yani jirka oo biyo la'aan ah taasna iska ilaali. Xanuunka kugu sii badanaya biyaha badan waa inaad cabtid.
biyaha cadi aad bay u fiican yihiin maasha allah. Marka insha allah biidnillaah wixii kaloo faa'iido ah oo maaragtay jirka waxa u fiican iyaguna insha allah waan ka hadli doonaa allah hadduu yiraahdo. Marka tani waxay tahay cuntooyinkii iska ilaalin lahayd rheumatism haddaad qabtid. Cuntooyinkan iska ilaali yacni wax kale si kale ugu bedelo oo si kale u samayso cuntada insha allah biidnillaah. Maanta intaasaan kusoo gaabinayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. يعني هدي أد نقول عصب تهاي نهر اللي هذا هدي أد نقول عصب تهاي please subscribe and comment below. comment جاكو أد بمهم نقول تهاي thumbs up هدي أد فيديو كان كهشين هدي أد نقول عصب تسودو هدي أد رينا ولا شوكتينا هدي أد بدو مهتمين دمانتين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.